Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Nabadda wadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waxaa ku soo dhawaataa barnaamij kooban oo kaga hadlay doono cufis jiidashada. Ugu horreyn sidee buu u shaqeeyaa cufis jiidadka ama xoogga loo yaqaano gravitational force. Ugu horreynba ereyga cufis jiidasho ayaa ah xoogga ama awoodda isu haysa laba shay ama laba jir oo is jiidanaya. Tani waa arrin la yaab leh oo macnaheedu yahay wax kasta oo la taaban karo waxa uu leeyahay cufis jiidad. Waxaana ka mid ah haddii aynu tusaale u soo qaadanno tufaaxa, aadanaha iyo dhulka. Tani waa tu kale oo caddaynaysa inaan marnaba laga baxsan karin cufafka is jiidanaya. Cirbixiyeennada waxaa saameyn weyn ku yeeshay culayska, laakiin si dhaqso leh ayaa ay dhinac ugu socon karaan ama ugu dhaqaaqi karaan iyagoo markaasi kusii dhowaanaya bartamaha meerayaasha. Markastana waxa ay ku jiri karaan xaalad socod joogto oo ay si xor ah u soo dhici karaan. Cufis jiidashada, cufnaanta iyo masaafada. Qadarka cufis jiidad ee shay kasta uu leeyahay waa mid u dhigma cufnaanta shayga. Waxyaabaha leh cufnaanta badan ayaa leh culays badan. Maadaama dhulku yahay shayga ugu weyn uguna dhow wax walba, waxaa lagu qabtaa jiiditaan ama cufis jiidad. Tanina waa sababta uu shay kasta oo la tuuraa dhulka ugu soo laabanayo.